toban qodob oo ku saabsan dhiirigelinta. Ha noqonin qof afka kaliya wax ka sheega laakiin ha wada socdaan go'aankaaga iyo waxqabadkaada. Ka dheerow isqoomameynta waayo waxay dishaa hanka iyo himilada nolosha. Wax kasta aad qabanaysid ha noqdaan waxaad ku qanacsan tahay. Kalsooni badan ku qab in uusan qofna hoos kuu dhigi karin aanan adiga ahayn. waayo aragnimadu waa shallo ay nolosha ku siiso markay timuhu kaa kacaan. haddii aad raadinaysa saaxiib bilaacaybah ogow waxaad noqonaysaa saaxiib la'aan. qalad kasta markasta uu bato guuga u dhowdahay maxaa yeelay qalad kasta cashir buu kuu yahay. samayso waqti aad naftaada ku raaligeliso oo u sheeg in ay tahay mid wanaagsan oo wax kasta qaban karta. mugdi kasta aad maraysid ha kaa horeeyo nal wadada kuu iftiimiya. noqo qof leh samir iyo dhabar adeeg ku wajihi kara duruufaha ka hor timaada noloshiisa. wax badan bixi wax yarna filo arrinka wuu hagaagi. samayso dad kuugu dhiirigeliya inaad wax noqoto oo han iyo himilo leh. arrin kasta oo kuugu dimaada go'aan ka qaado weligaana iska ilaali kana noqoto ama labalabaynta. dhibka waxaa ugu ladan qofka taladiisa ilaahay u gacan galshay. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar maxaa yeelay waxay noo tahay dhiirigelin. asxaabtana la sii wadaag. والله أعلم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.